السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وإن سلامي ميل كستا جوجتين كسو دوادا محمد جانل وإذن كجمع هاد علنا على سعشرة إلى سعوتين لايك شير كومنت أسوبسين كلين حفظ الله dadka nagu cusub waa soo dhaweynaa dadkii horena waa u mahad celinaa kulligiin xafidullah insha Allah. maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago waxba ma karinayo waa u jeedin inaan idinla wadaago dishwasherkan waxa waaye dishwasherkan meel cidle ah uu yaalaa meel cidle ah waxaan ka wadaa dhinaca jikada qaybteeda ma ka tirsano jikada intay ku dhamaatay intaasay ku egtahay jikada asmeeshana la iska dhiga marka tubana waa lagu talaalay xag biyaha uga qaado laakiin meel cidlo iska yaala camal waay kama tirsano jikada ya marka waxaan rabaa inaan u sameeyo qaanad ama meel macnaha wajigan hore uu iska laakiin qaanada inta dabooleyso oo ilaa halahan dabooleyso ilaa xagana dabool u yeeleyso oo waxa ka celinayso insha Allah dhinaceedan kalena dabooleyso marka insha Allah waa arkaynaa sida aan yeelno waxyaabaha aan ku mashquulsanahay kamid tahay raal ahaada congratulations waa u dirayaa dadka GCSE da baaseen kulligiin xafidullah insha Allah dalkan UK kulligood waa u hambalyeynaa insha Allah marka kulligood xafidullah insha Allah ilaahay hana la garab galo tan labaad mutuneelkan intuu ku egyahay meeshaas ku egyahay ilaa intaas leh jikada waa u jeedina umaleha barxada banaan intaas uu ku egyahay marka waxa kaloon rabaa inaa intaas kale aan dhameystiro darbiga ilaa halahaas waa u jeedin inta banaan intaasna inaa mutuneelka ku daro si waxyaabaha fafaniinka iyo waxa iyo ay macnaha u gaarin oo kor oo jiriyo insha Allah marka waa ila arkaysiin waxyaabaha aan ka sameeyo meeshaas waaye waa fahmaysiin ilaa halahaas banaan marka insha Allah waa in tusi doonaa sida aan wax yeelo la socda insha Allah waa taas iidana meeshaas iska taala dishwasherka waa tana meeshaan ay taala meeshaan xataa waxba kama xigaan waa taas waa banaan tahay marka insha Allah sidii waxaan u rabaa inta camal ya tan dharka dhaqayso u jeedin meel ay ku jirtaa ya saas camal waxaan kaloo rabaa kuukarkan macnaha 11 sano jira maasha Allah waa ku soo moodnay haddana ma jecleen inaan tuuro aad u fiican yahay ya laakiin waxa waaye waxa ka jabay garabka meeshaan uu ka jabay meeshaas garabka meeshaan uu ka jabay haddii aan dhahay hala suubiyana 100 baan iyo ka badan aan leedahay marka kuukar cusub inaan gato aan go'aansaday because maadaama 100 iyo ka badan aan ku darayo inaan kuukar cusub iska soo gato cimrigiisana waa qabiyaa maasha Allah ani wax in lagu dheedheelo ma jecli wixii inta la dhoor karo in la dhooraan jeclahay kana asagana saas oo kale waa la bixinaa insha Allah waqtigii ugu dhow oo possible ah maasha Allah waa ka taqaaneen waa kii badarka leedinku kari jira la iga dheh insha Allah markii oo wax la geliyo waa inay qof albaabka ku celisaa oo markaas ka bacdi wax la geliyaa way sameeyay waa dube wixii dhan waa qabanay laakiin in lagu celceliyo hadii qof guriga joogina ma geli kartid bal liana adoo labada gacmood wax ku wado wax ma geli kartid marka saas awgeeda waa jeclaay bahasheeda dhaqaale ahaan ma sha Allah ilaahayna ma caroodo ilaahay hay cafiyo hadan ku gafaayo laakiin hadda dhibaato iga haysato oo ah macnaha aan
laba gacmood aan ku geliyo ay tahay oo qofna uu ii celiyo oo macnaha waa fahmaysiin waxa aan ka wado garabka dhanay ka jabtay albaabka marka la furo in qof ku celiyo qofna uu geliyo marka taasna macquul ma aha hadda muddo sanadahan saas ku waday iyo 2 sano waa dhan tahay marka insha Allah ayadana waa arki doonaa waxa aan ka qabano company fiican ay ahayd 11 sano 11 sano nin walba soo u yaqaano ee jirtaa ma sha Allah waan iska haysalahay haday ii fiican tahay weli Allah tana iyadana jirto oo tana iyadana jirto oo waxa ah oo macnaha oo u jeedin ayadana waxa waaye microwave waaye ma sha Allah waa ku soo moodnay tan ciyaalka bi waxana qabo ilaahay hana cafiyo ciyaalka abi waxana qeynbo hooy waxay dhaheen hadii uu wax fahmeyn waa talabtan ya marka insha Allah microwave waaye marka insha Allah iyadana waxaan rabaa hadii ilaahay yiraaho waa taasa waa ku soo moodnay ma sha Allah ayadana hadii ay waqtiga ugu dhow oo suurta gal ah aan macnaha sagootino insha Allah ya microwave-yada waa laga dayriyay taqaatiirtu waa ka dayriyaan haddana haday long time si taalana dib kale inay keentaabo macquul ah marka insha Allah ayadana waa la sagootinaa hadii ilaahay yiraaho ani waxa macnaha waa daboolaa wixii aan dib keenaynin waa daboolaa insha Allah marka waa jeclahay inaan microwave-ka iyo maxay ahayd dishwasher-ka iyo korkooda aan mara saaro ama bac wax kaaga celiyo wasaqda tirada badan hadda waa tana marka in tusaayay korkeeda fiiri waa tana ya 13 sano waa jirtaa umaleeha ya ma sha Allah ilaahay waa nagu soo badbaadiyay waa nagu soo amaansaday alxamdulillah alshukru haddana inaan ku jisaarno ma jeclayn laakiin macnaha waa iska bedeleynaa hadii ilaahay yiraaho insha Allah waatana saana u jeclahay inaan marooyinka la kor saaro oo yacni wixii ku halaabi rabo iyo wixii kale iyo ay ka celiyaan ya ma sha Allah ilaahay hana la xifdiyo tan way fiican tahay laakiin tusaale leen ka wada kuwa waxa ku qoran not cover kuwaas amal in wax la saaro ma aha laakiin hadaysan ku qorneen waa saara kartaa ya qaarkood waxa ku qoran waxba ha dul saarin marka insha Allah taas intaba ma ku qorno waa taasa ma sha Allah dishwasher-ka naftirkeeda maradaana saarneed ya hadda muddo 2 sano saanay ahayd marka kana saarnay xataa taqaanad loo yeelo oo korkaan la geliyo still waa saara marka ma sha Allah waa taasa gabdhaha oo haystaan dhul oo yacni dishwasher haysanin waxaan ku recommend garay lahay inay dishwasher-ka haday rabaan ay ku tala jiraan inay soo gataan ma sha Allah wax badan ay dhaqdaa wax badan ay nadiifisaa macnaha dadka qaarkood ah dhaho koronto badan ay qaadataa maya ma sha Allah marka waa kaas insha Allah hada meel haysato waa kaasa gasho meesha haysato hadaadan haysanin saa camal aad banaanka iskaga dhigay tuba loo yeelaa ya hadii ay niyadaada ku jirto ani waxaan ku dhihi lahay go ahead insha Allah ya wax fiican waaye kaalmo waaye insha Allah marka waa kaas insha Allah sidaan u bedelno iyo wixii aan ka sameeyno waa arkaynaa ya next time insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.